xiriirka Soomaaliya Eritrea dib u soo noqday maxaad isleedahay mar waliba waxaan u arkayaa in positive uu yahay in xiriir wanaagsan dawlad ka mid ah dawladaha gobolka la yeesho waad ogtahay Soomaaliya haddaan annaga aan dawladda isniraado Soomaaliya allay leeyahay ha ka hirgasho nabad iyo dawlad hadba dalka aan isleenahay xiriirkiina waa uu xun yahay ama wanaagsana ayay waxay siin jireen dhufays ay dawladdu ka soo weeraraan hadba dawladdii annaga xiriirkeena uu xun yahay waad ogtahay marka xiriirkeena annaga iyo Ethiopia uu xumaa jabhadii ee dawladda burburiyay oo dhan ee jirtay xilligaas waxay ka soo shiraacanayeen Ethiopia hubkan halkaas laga soo siin jiray oo dalkan lagu burburinay sidaa iyo si lamid ayaa dawladda federaalka hadda ee iyada markay iyadu urdanka ay ahayd ee la onkay dadkii ka soo horjeeday ee mucaaradka ahaa markii Ethiopia aan xiriir wanaagsan aan yeelanay oo iyadu dawladihii wax ka dhisayay dawladii kumeelgaarka ee Nairobi markii ugu dambeysay iyo Carta maartay oo ka horeysay waxay dhufays ka dhigteen Eritrea ay aadeen oo halkaas oo iyada xiriirka marka dawladda ee marka Imbagati lagu soo dhisay aanan la lahayn xiriir wanaagsan ama Ethiopia iyo Eritrea isku xumaa oo ayada arintaasi ay Eritrea ku kalifaysay inayan dawladda la shaqeynin ee mucaaradkeeda la shaqeyso waa Djibouti waxay go'aanaysaa Eritrea dhul Djibouti ay leeyihiin haysato oo xuduudka muran ogaan ayaa ka jira marka saameynta xiriirka Soomaaliya iyo ka waran Djibouti haddii la xalin waayo xiisadda Eritrea iyo Djibouti ka dhex taagan waxa aniga ila tahay dadka Soomaalida badi thaqaafada ku dhisan ama culture-ka violence-ga ama cunfiga ama mar waliba ku dhisan ama dagaalka inay maskaxdooda mar waliba iyada ay ku hayaan dad dagaalamay say u heshin karaan ma gartay ama haddii la dagaalamo xataa wax lee maartay inay jiri karaan oo mar waliba annaga adduunkii shalay maaha meeshaan caraba Israa'iil xiriir la yeelanayso qaarkoodana aan ognahay inayan ayaga ee maqalkooda xataa haddii ay maanta ay maqlaan Israa'iil yani inay nafta maartay ka baxday kusoo dhawaanayso anagaas oo Soomaaliya ah ayaa carabnimo iyo islaamnimo nagu weyn ayaanan maanta Israa'iil heshiis aanan lahayn oo aan maanta ummadda Soomaaliyeed aanan maqli karin sidaas iyo si lamid ayaa berri midab gumaysigii ka jiray South Africa ayaa Soomaaliya heer baasaboorkeena laba dal ayaa ka reeban ayaa noogu qorneed inaan qofka Soomaaliga baasaboorkiisa ku tagi karin Israa'iil iyo South Africa adduunyada maanta waa masaalix adduunkii shalay maaha qof waliba dantiisa ayaa wuxuu ka dhex arkayaa qofka kale wax aanan dan isaga ugu jirin waxaasoo dhan waa wax keenay si individual ama arta oo iyada ay xiriir lala yeesho koox ama qolo gaar ama dawlad gaar kuwa kalena maxay ka galay la yiraahdo in wax geeska Afrika oo meel istiraatiijiyad ay adduunka aragti gaar ah ee xoogaga ku loolamayo maanta caalamka ee Afrikana ku soo foorara oo Europe le oo Mareykan le oo China le ma gartay iyaga inay ma artay aysan noqonin dawladda kale berri inaysan iyada victim ana u noqon waxa tan kale ee berri iyadan ay ka imaan karaan oo berri haddii midda kale ayaday u soo dhawayso cadaawadeeda ayadana aanan sidii shalay aanan loo noqonin mid meesheeda inuu dhulwayga uu ku cuno watahay waa soo koobayna waa gudbayna mawduucan ka war saameyntan geeska Afrika siyaasadda ka socota ee in badan isbedelada ay dhacayaan saameynta ama gacmaha shisheeye Afrika ka baxsan ka wada sida Imaaraadka Khaliijka Qatar iyo Turkiga iyo China saameynta ay ku leeyihiin mandaqada geeska Afrika siyaasadeeda ka warayna siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya annaga loolanka nooga wajahan ama nooga soo maartay ee foorara meelaha
يعني حستي وحكى سوقات ل أنت بدن واحد دولتها وين أي وضع دولتها عن كلا إيجا بعرف ماينر كا ووح لقد دمبيو الدونك ضبا معرتي وحي أركيان وحهرتو ده يا لكري لكن عن قانين واحد behind the cartel أما لو يراد ما وراء الستار يعني قل كجداشي سمعتي أما ده جداشي سم تتكهوش كوضع هذا واحد لو مصدر يا دولته وهو لكن شر معرتي دولة كله كوا وين هي ده بدك الريح يان أو أي إسقارين أيو أما الشركة هذا يا لو مصدر يا أو أي إسقارين أيو جيت أو معرتي كدوان كان أديك أتك أمين سنتهاي أو أي حنبارسن أو أي فلين يان وجدوين ووين أو أديك أدو هي ستة معرتي لقى يابا معرتي وح أديك كم معرتي لومين كرا أما كم مرين هواين كرا أي تاي ولي فيها مآرب أخرى وحأي أسعدني وحأي هدف كذا أي كوجو تلمام يعني وحأي بيدرأ وياي أما قاعد على عدة كودا أي وجدت كمان دمبيز أي تاي سومالي ودي أكتاي ضل حيب تقول إن أفريقيا أي لنا وحال لنا هي سوماليا ضل برد وأنت صهيك ترى لبوبي يوميت كلو ولي بدعوة سيرة الصومالي ساعة أنا لو حسين وحا سوماليا أي لنا هي معادن يشيدال أنا سوماليا ولي أن لا تقدمين ضبع الرحمن شركة أيها وضد بولن علشان دولة أيها سحنصري وحنا أنا سحنصن دولة أيها وح سوماليا كجر وأنا أوهين أنا وحن إسكان نقوني ضد وح أيها كدر السعودان وأنا قرنين سيدي حافظ إبراهيم ضد كيس أورنجري وكره أيشتكي الفقر غادينا ورائحنا ما كان سيك الله يصبح لي يمتك السوهي هذا يبو مي أننا فقراء نقول الماميان ونحن نمشي على أرض من الذهب أنه الذهب كدل سعنا سومالي ده علبي إنه يسكت دي شيء مال عوس ما عرفت حوالي إنه يكون داجستان يسكت لايان واحد تكرر كذا عيوكر إيه وملاها كذا إيه أنا إيه ما عرفت أفر إيه لما تنسى بقول له الويل سوماليات اللي جوينا يو حدنا أنا لو جيدين وحوضنك dadka Soomaaliyeed hadii maanta qorshe la dejin lahaa dhaqaale ee dawladda Soomaaliyeed ee kaliya is ogaan lahayd wax iyada ay haysato nin kasta oo Soomaali ah iska dhaafo gabar kasta oo Soomaaliyeed cunuga caloosha ay ku sida ayaa mushaarka uu qaadan lahaa ayaa la qorsheyn lahaa arintaasna haddaan ku raaciyo waxa aad u xanuun badnayd maaxadka qorsheynta ee dawladaha Carbeed ee Kuwait ku yaala ayaa anagu wafdi ah ayaan tagnay كو إلى وطنك الدل عربيات أكل كل قرشهود أي سمايسنا ويلك سوماليا وحي كم تهاي ودمضة برواقة صورن كأجيس كأفريقيا دعاء دقائق سياسة ومجله وضد فرق بدن إدريمي كران أي جيس كأفريقيا صعنية مركا أركتي أهان سوماليا سامين انتلك أيوكو يالكران دولة سوماليا أما جمهورية الصومالية إنها حرير وناكسن منطقة دولتها أترسي جيسك أفريقيا يبرق أفريقيا كوريا لان حرير وناكسن إنها ليالتو ومد فائدة بلارن أو لنا كستا مركا لو إيغو سياسة أمني دقالة يبلشو انت بفائدة أولئك أنا أركيها هدي أي سنة هين أي كيني كرتو لبعض السياسات أمنيات مقالات يبلشدت انت مركا اللي يراد الله بدا سامين هدي وحا فائدة ده دادك الصوماليات الاسواناقة أي كوهلي كران haddii laga shaqeeyo oo ay si guud ahaan mandiqadana si daacadnimo xiriirkaas looga turjumo oo nabad iyo horumar laga shaqeeyo Soomaaliya kaliya ma ahan guud ahaan dawladaha mandiqada ku nool
ayay guud ahaan faa'iido u tahay